oo leeyahay wadaadku wuu heesaya warmaha hees hadii alla ka dhigo marka in afka la ilaaliyo luqada la daryeelo baahi baa loo qabaa gabaygu sidiisaba waa hadal dadkuna luqada ay leeyihiin in lagu hadlo aad bay u xiiseeyaan ereygan aan af Soomaaliga ku sheegeen soo dhaweeyay baa dad badani ay xiiseynayeen qaar badana ay haday doonaha iska ilaaqaane marka in afka la ilaaliyo luqada la daryeelo baahi baa loo qabaa dadkuna luqada ay leeyihiin in lagu hadlo aad bay u xiiseeyaan imka habeen dhaweyd maraan kelmad yar macnaynay nin walba sidoo doonaha u qaatay aan ka hadlayay eragay nodayga aan ka hadlayay waxaan arkay ilaa iyo milyan iyo 500 oo maxaan ku raahdaa view booyash milyan iyo 500 24 saac gudahooda 650 view buu helay wax kalena ma ahayn ereygan aan af Soomaaliga ku sheegeen soo dhaweeyay baa dad badani ay xiiseynayeen qaar badana ay haday doonaha iska ilaaqaane oo leeyahay wadaadku wuu heesaya warmaha hees hadii alla ka dhigo gabaygu sidiisaba waa hadal hadduu hadal yahayna kiisa xunno wuxuu yahay kiisa samina wuusan yahay laakiin diinta iyo suugaanta islaamku iyo quraanku isba diidana bal waxa laga yaabaa erey kaliya oo tiraahdo af Soomaali aad u qurux badana inuu qofka uga soo dhaweyn badan yahay fahamka inta soo bayd oo Carabi ah inaad ku dul akhrido marka waxaan oran lahaa culimada islaamka Soomaalidu inay mar walba ay tixgeliyaan ummadda ay la hadlayaan cid ay yihiin ummadda ay la hadlayaan cid ay tahay waa Soomaali waxaad arkaysaa la yaabaa boodharkan ma aragtay meheradaha lagu dhajiyo ayaa waxaad arkaysaa ninba wuxuu rabaa inuu Soomaali wax ka iibiyo laakiin wuxuu iibinayo dhan Ingiriis buu ku qoran yahay wax allaaliyo wuxuu soo kordhiyay inaanu qorinayo inuu qoraado waxa macna sameynaysa ma jiro dadkan wax ka iibinaya ma fahmayaan luqadan ma garanayaan marka sabab allaaliyo sabab uu isugu xiijinayo inta soo bood oo hadii la yiraahdo leyd iyo gacani kaga baxayso waxa kaga fiicnaa wuxuu qabanayo isagoo af Soomaali ugu sharxa haduu doono xagga hoosana haba isxarifiyo oo ha ku iibgeliyo Ingiriisiga ha ku sheegay laakiin inuu horta luqada dadkan yaqaan wuxuu iibinayo ugu sheego ila suuqeyn bay u tahay marka in diinta Ilaahay dadka Soomaalida lagu fahamsiiyo afkoodu waxay soo kordhinaysaa inay dadku u soo jeestaan inta aan hadal leeyahay ma aragtay oo af Soomaali ahayn wax like oranaya ma jiro wala iska dhaafaya laakiin erayaro Soomaaliya markaad ku dhawaaqdo baa la isu wada dhiibayaa macnuhu waxa weeye baahi baa loo qabaa bay ka dhigan tahay masaladii baa baahi loo qabaa marka in af Soomaaliga la barto waa muhiim luqada af Soomaaliga in la barto waa muhiim